حنوير إن شاء الله تعالى بقر سعيد عبدي حسن حرشيني وقت waxaan ku faraxsanahay runtii ka soo qaybgalka kulankan ballaaran ee reer Sanaag isugu yimaadeen ay baaqa ugu dirayaan colaadaas hadda colaadi ma jirtaan maleynayaa nabadeen baa la wadaayo wax laga yaabaa dad inay u fahmaan markaynu baaqan dirno in wax cusub jiraan laakiin waxaynu rabnaa inaynu ka sii hadalno gogasha nabadeed ee cirgaabo taala iyo dhalinyaro ahaan aqoonyahanka gobolka Sanaag iyo culimadii maadaama aynu nahay waxaynu ka leenahay arrinta saasay tahay waan maleynayaa waxa la bilaayadu laba u qaybsantaa oo bilaay rag heshay iyo bilaay rag weeday waa labada bilaayadu baa la yiraahdaa marka ilaahay waxaan ka baryaynaa colaada shidan inuu ka dhigo bilaaya rag heshay laakiin sidii ceelafuna nagu rafano dad badan oo qiimo leh aanay nagala tigin taana inaga ka shaqeyn karnaa iyo waayeelka arrinta loo saaray ayaa ka shaqeyn kara waxaynu rabnaa kulligeen inaynu si shakhsi ah iyo si kooxeed baan uga wada qayb qaadano nabadda laakiin intaynu halkan isugu nimaadno inaynu halkan nabad ka sheegno adhoona guryaha colaad kula noqono iyaduna waa masiibo kale marka inaynu dhab inaga ahaato baashu waayo cidda ugu xunay saameynaysaa waa dadka wax bartay iyo culimada iyo dadka dhaqaalaha haysta colaad dadkaas u daranta waxa la yiri dadka qofka wax dila waa qof reer miyi ah oo aan aqoon badan lahayn oo hadduu dhinto xataa inuu naar galayaan ka warhayn baa wax dila laakiin anigu haddaan wax barto waxaan ogahay haddaan qof dilo meeshan aadayaan ogahay kaasi marka ma yaqaano qofkan waa dhakhtar ma yaqaano kanu jaacad wax ka dhiga ma yaqaano kanu waa culimo toos baa lagu soo tilmaamaya oo ku imanaya waana ka dhamaynaya marka taas inaynu ka hortagno ayaa muhiim ah marka waxa jira buug la yiraahdo reer cirgaabka waxaan yiri reer cirgaabo iyo reer Sanaag ha loo qabiyo buuga waxa la yiraahdaa bilaay rakash iyo bilaay rag weeda la yiraahdaa nin reer Soolaa qoray oo reer Soolaa dawladda way naga sii badan yihiin marka laba shay ku soo qaataa wuxuu yiri hadii la rabo bilaay in la bilaabana meel yar baa laga bilaabi karaa oo for example waxa nin baa wuxuu yiri ilaahu roob nasi mid kale meesha jooga intuu bur qaatay yiri ilaahu roob nasi maxaad u leedahay xoolaha inuu cidla joogan baad ogtahay Soomaha oo burkiisi qaatay halkii waa dagaal ka bilaabay labadana isku galeen sheego kale oo taala mid ah jirto bilaay ragashay qeexaso waxa la nin baa gabadh laga leetay gabadhu 9 wiil la dhalatay markii gabadhii la leetay ayaa 9kii wiil ninkii la tagay gabadhii odagii wixii wax naaqeen dabeedna waxa la ninka waa dilinaa odaga wuxuu yiri mar haddii raacday dilinayada inoo iman doontii daay dabeedna ninkay raacday baa maalintii dambe gabadhii inta isku xanaaqeen ilmay u dhashay ilmihii isagoo baxsanaya ka hortimi dabeedna gabadhii baa tolma iska gabadhii ku xanaaqo gudin buu ku dhuftay gabadhii waa dhimatay dabeedna nimankii baa loo warkeenay odaga waxa la yiri gabadhii ninkii dil waa dilay ninkii gabadhii waxaad filaysaa markaa nin gabadh markii hore la tago loogu ciil qabay haddana dilay xalku muxuu noqonayaa bay kula tahay 9 wiil la dhalatay odaga wuxuu yiri waayay ii kaadi gabadh aniga arrinta iga baxay buu yiri wiilash gabadhii la dhalatay waxay wuxuu geeyay gurigi wuxuu gabadh hore soo medilin xaaskaaga baxay amar baa dhacay tan adaba guurso haruurta ahayse dabeedna odagii wiilka dhalay oo isla wiilkaaga uba dhamaatay baa wuxuu maqlay war gurigii gabadh baa la geeyay iska daa in maaragtay in wax la xumeeyay isagiina baa la yiri 200 geel intuu soo kaxayay ayuu guriga odaygii halkii xumaan la filay meesha maxaa ka dhashay islaax baa ka dhashay inaguna taas inuu baahnahay oo kale inaan wax badan ka tagno assalaamu calaykum